waa laba shaah aad gurigaa ku samaysan kartid dhakhtarna kaga maarmi doontid insha allah haddii calool fadhi uu ku daashaday caado khalkhal burobiyood ugxaantaada haddii ay daciif ay tahay caadada haddaad ku xanuunsatid dhammaan mashaakilaadka caloosha ama makaanka ku saabsan sida baabasiirkoo kale calool fadhigoo kale dhammaan wuu kaa caawin doonaa shaahigan daa'imo haddii maaragta aad sooman tahay oon dhiig caado kuu joogin waxaad isticmaalaysaa maqribkii markaad afurto kadib markaad sariirta tegaysid iyo markaad saxuuranaysid laba waqti shaahigan haddii caado ay kuu joogto oo dhiiga caadada hadda uu kuu joogo xanuun oo ku haayana maalinta saddexaad ilaa aad ka qabaysanaysid ayaad wadaysaa burobiyood hadduu ku daashadayna 3 bilood ayaad isticmaalaysaa alaabtan fideogan dhammaysan leeg saar dhanka tiktok haddaa igala socotidna leylo official kusoo biir falowna ii saar tiktoka loofna ii saar insha allah brofiilka kore tag leylo official youtube-kaygaa saaran kusoo biir insha allah waana mahadsantihiin bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalayga qaaligaa kusoo dhawaada janalka leylo official haddii aad igu cusub tihiin subscribe lee comment share haddii aad hore ila joogtana lee comment share waana idinkaga mahad celinayaa sida quruxda badan aa mar walba ila socotiin waana mahadsantihiin mahad celintiina marnaba kama daalo ilaahay subxaana watacaala dib iskulankeena soo celiyey oo janal kusoo laabta alxamdulilaah maanta waxaa idinla wadaagayaa meeshan waxaa inoo yaalo 2 koob iyo biyo karkar ayaa jalmada gadaasheedii taalaa ee igu jirtaa intana waxaa ii yaalo xulbad shiidan iyo shanfaxdiyo sideedii ah aana soo shiidin haddaa shiidid shanfaxda oo sheehan ka dhiganaya dhardhareeroo naqanaya mana cabi karaysid alaabtan haddii aad tijaabisid dhakhtar dhan waa ka maarmi doontaa insha allah caafimaad fara badanna waa ku heli doontaa lafa xanuunkana wuu u fiican yahay haddii asma ay ku daashaday wuu u fiican yahay alaabtan haddii maaragtay ay ku hayso burbiyood yacni laga soo sheegay waxaantaada hadduu daciif yahay calool fadhi hadduu ku haayo iyo sida loo isticmaalayo fideoga dhammayso leegna saar youtube-ka dhanka tiktokana follow dheh insha allah loofna saar insha allah meeshan waxaa ku jiro shanfaxdii iyo shanfaxdii ama xabad rashaad kaas waxaa waaye xulbad aan soo shiiday budo ayaad ka dhigaysaa xulbadda koobkaas ayaana ku shubaysaa intana waxaa waaye shanfaxdiyo qamir ah ama noolnool ha shiidin si dhardhareer oo kaa naqanaa sidii qorfihii kadib biyihii kululaay ayaan soo qaatay oo khatalka aan ku shiiday ku kariyey ama jalmada aan ku karkariyey kadib labadaas koob ayaad ku shubaysaa 20 daqiiqo ayaad dabooleysaa haddii aad sooman tahay xilliga afurka aad shaah ahaan u cabaysaa markaad wax cunto kadib iyo xilliga saxuurta markaad saxuurata kadib haddii aadan sooneen uu kaa jaban yahayna maalinta saddexaad ayaad isticmaalaysaa ilaa dhiiga caadada aad ka qabaysanaysid hadduu dhiiga caadada aad ku xanuunsato ugxaantana aad ayuu kaaga saaciidaya ugxaanta aad u koriyaa markaad ka qabaysato caadada maqribkii wixii ka bilowdo waa soomaysaa wixii ka bilowdo dhiiga caadada kadib maqribka ayaad haddana cunaysaa muddo 7 maalmood kaleete waana joojinaysaa insha allah ugxaantaadana diyaar inuu yahay ayaan rajeynaya ilaahay subxaana watacaala owlaad saalixiin kugu irsaaqo dhanka maaragta burobiyoodkana caadada markaad ka qabaysat ilaa adi 3 bilood aad isticmaalaysaa burobiyood haddii laga soo sheegay oo lagu dhahay ugxaantaada burobiyood ayaa saaran burobiyoodka kaa caawinaya muddo 3 bilood wadaysaa caado wareer hadduu ku haayana muddo 3 bilood ayaad wadaysaa oo ah xilliga afurka iyo xilliga saxuurta waana ku guuleysan doontaa waana ku caafimaadi doontaa xulbadaas fitamiinaad fara badan oo jirka u baahan ayaa ka buuxo macdin ayaa laga helayaa feero ama macdin ama maaragta iron sidaa u taqaanid ama birta waxyaabo badan ayaad ka faa'iidi doontaa insha allah shanfaxda ama xabad rashaadkana waxaa ku jiro asagana birta waxyaabaha birta maaragta haddii ay kaa maqan yihiin calool fadhi ama waxaa dhallafa xanuun dhabar xanuun daal fara badan waa firfircoonaanaysaa adiga dhan habiyaa naqanaysaa stresska
walwalka dhammaan wuu kaa baxayaa. Waxaa haminaysaa inaa orodid, inaa socotid, inaa maaragta howl qabsatid. Labadan shay keliya daa'imo jir qurux badanna oo kaa soo bixi doona wejigaaga qurux adiga dhan kaala aragaan ku dhahay. Labadan shay keliya shaah ka dhigo, shaahiga gaduudan iska daaya. Biyo fara badan cab, qudrada cagaaranna ku dadaala insha Allah inaa qudrada badan maaragta cuntiina isku daya. Inaa maaragta shaaha maaragta gaduudan iska dhaaftiin shaahiga cagaaran ama labadan shay shaah ka dhigatay daa'imatid. Muddo 3 bilood haddii aad isticmaashid burbiyoodkii dhakhtarkii wuxuu ku leeyahay maxaad iskaga bi'isay insha Allah biidnillaahi alkariim. Ugxaantaadana wuu kuu kobcayaa. Dhiigaaga caadada haddii aad ku xanuunsan jirtayna xanuunku wuu ku daynayaa insha Allah. Haddii caado khalkhal ku haayana bil gudihiisa adigoo isticmaalayo isla marka dhiigaaga caadada wuu kuu saxayaa. Bil kasta xilligiisa ayuuna ku imaanayaa insha Allah. Labadan shay keliya tijaabiya. Aniga waxaan soo tijaabin meeshaan ma idiin soo dhigo waxyaabo badan waxaan faa'iido ka helo. Waxyaabaha jirkeyga maaragta ku soo kordho oo caafimaad ah. Waxyaabihii Ilaahay igu caafiye ayaan idin la soo wadaagayaa markasto. Marka idinkana maaragtay inaad ku dadaashin naftiina aad maaragtay u roonaatiin isku daya. Waxyaabaha qudrada ama fruitka kale ama cagaarka kale ama digiraha waxyaabaha gasacyada maaragtay iska ilaaliya. Waxyaabaha oo aashitada ku jirto sida sokorta wax ku badan yihiin. Sokorta sember ina iska yareysiin isku daya. Sokorta haddii aad iska badisid ama waxyaabaha aashitada Coca-Cola kale Fanta kale aad iyo aad oo jirkiina dib ugu keenaya insha Allah. Aad waxaa sameynaysiin biyo fara badan biyaha cad ha joojinina. Biyaha cad saaid ina u cabtin isku daya. Labadan shayna maaragtay inaad ku dadaashin caloosha hadduu idin socdo caloosha marka qofka bilaadanka dhaqaaqo aad iyo aad ugu fiican yahay calooshaadana mar walba hadduu dhaqaaqo oo waqti walba aad masqusha galaysid oo dhabar xanuun waa koronaanay lafa xanuun waa koronaanaysa waxaa kaloo koronaanaysa haddii maaragta baabasiir oo ku daashaday baabasiir waa ka fiicnaanaysa haddii burbiyood ku daashada waa koronaanaysa dhiig maaragtay ka xirmaayo aana soconayna tubooyinkaaga hadduu xiran yahay dhammaan wuu kuu furayaa marka ka faa'iideyso channelkana waa channelkaaga like saar subscribe saar inaad ku soo birtan isku day inaad share gareysan isku day asxaabtaadana la wadaag waxyaabaha adiga aad faa'iido ka heshid walaashaana ka faa'iido walaalkaana ka faa'iido marka ku dadaala inaad ma aragtiin aad sii share gareysiin waa Laylo official oo idin la mar walbo fi amaanillah waa fiidiyooga xiga iyo sidaas iyo nabadgelyo bye bye